dufcadda kalshaale ee jamhadda SSC ayaa maanta tababarku ugu soo xidhmay xerada Ballehawd ee magaalada Buuhoodle waxaana munaasabadan lagu soo xidhiyay tababarka ka soo qayb galay waxgarad ka kala yimid dhammaan magaalooyinka hoos yimaada gobolka Cayn. Munaasabadan ayaa ahayd mid lagaga hadlayay mideynta Sool Sanaag iyo Cayn waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Caaqil Xasan Ciise Wacays. waxaan jeclay had iyo goor nabadgelyada wax meel aan nabad jirin anigoo 15 jiray maanta 9 baan joogaa buuxa maanta 15 jiray balaayo nabadgelyo iyo nabadgelyo aan waa nabadgelyo haddii la waayo waxba saxmi maayo hagaagi maayo nabadgelyo haddii haysatana wax walba waa ku socdaa awoodda marba aynu leenahay isu timaadaa ha xusuusato nabadgelyada ha ku mitido hawshaan sida loo soo dhigay waa si fiican oo maquula waanu ku ogolahay. dhinaca kale dhammaan qaybaha kala duwan ee gobolka Cayn ayaa soo dhaweeyay jamhadda SSC ha noolaato ha muuqato ilaahay subxaanahu wa ta'aala muruqeeda iyo maskaxdeeda ma aragtay haystuso ma aragto maskaxdeeda iyo muruqeeda goboladeeda uma muuqdaan deegaankeeda uma muuqdaan tiidanteeda iyo dalkeeda deegaankeeda arta Allah ka dhigo shirkeena mid guul ku soo gabagabo Allah ka dhigo intaasaan ku koobayaan deegaanka Buuhoodle waan xaflad ay iskugu timid deegaamada dadka deegaanka guud ee SEC dadka ka koobnaayeen dadka ay ku qotonto SEC deegaanka ay degan yihiin dhammaan shacabkoodii iyo odayaashoodii iyo fakarkoodii iyo awoodoodiiba halkan bay fadhidaa taageersanna si sare iyo si hooseba waa uga shiray waa ictiraafsannahay waa la shaqaynaynaa madaxdeedana horaan uu soo aragnoo ballan u lahayn waa sii kordhinaynaa shaqadii iyo tabantaabadii aan la wadnayba hadalka in la badiyo waxaa la yidhi oo waa la maqli jiray oo waa la maqli doonaa Sool iyo Sanaag iyo Cayn ummadda ku nooleey midnimo yaa inoo ballan ahaa midnimadii baa maanta loo taagan yahay waa la guntaday anigu hadalka waxaan ku soo gaabinayaa marka hore oohow dal iyo dibad wixii joogow oohow isu imaada dantiina lagama maarmaanka intaa waxaa weheliya jabhaddani waxay hoos tegaysaa federaalka Soomaaliya bay ka tirsan tahay halka waxa idinka muuqda calankii shanta gees lahaa ee cirka u ekaa ee Soomaaliya ugu horeysay sidaas u yiqiina oo cadaynaysa inay hoos tagtay oo ka tirsan tahay oo taageersan tahay oo ay ummad Soomaaliyeed tahay oo midnimada Soomaaliyeed haday guud tahayna ay rabto haday gaar tahayna ay SSC rabto oo ay doonayso oo ay dhisanayso oo ay u taagan tahay wasalaam. waxaan ka imi magaalada Dibataag anoo ku hadlaya afka magaalada Dibataageed waan soo dhaweynaynaa jamhaddan cusub ma cusub ee mar hore magacin baxay laakiin kol hadda boorka laga jafayo SSC ee hogaamiyaha iyo taliyaha ciidankaba halkan lagu xafladan maanta loo dhigay si wacan baan u soo dhaweynaynaa waan taageersanahay dacalada aan ka nimin aad baa looga soo dhaweynayaa waxa laali wax aan u qabanayno waxaan ka haranaynaa ma jiraan annagu waxaanu ahay kuwii ka soo shaqaynayay aniga la hadlayay iyo rag badan meeshto waxaan ka socdaa degmada Ceegaag odayaasha degmada Ceegaag bana waxaan ka mid ahay odayaashii ka shaqaynayay inay halkaas soo gaadho u hawlgalay hadalla xulxuno badan baa dadku dhalahaado wuxuu war markaan ku lahaa abarti dhabow bay maqlaysay oo hey miyaan ku lahaa buuri oo ma aanu joojino waxaanu doonaynay halka inay soo gaadho ay maanta marayso idina waa idinku soo sirnay SSC oo dhan kii maqana waa iska anigu waxaan ahay jamhadda SSC taliyaheedii ciidamada SSC saad uu horeyba idinku sheegay nimankii iga horeeyay
marka maanta ereyo kooban dee raggii hore ayaa idiin sharxay waxay tahayba ereyo kooban baan idin dhahayaa ereyada kooban mid waxaan dirayaa bahda SCC Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu nahay dad isu taagay midnimadeennii xornimadeennii oo aan dulmi aanan iskugu taagin inaan ummad dulmino inaan ummad dhibno iskugumaanu taagin ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay hogaamiyaha jamhadda SSC Cabdirashiid Xuseen Cali khiyaarta iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaan waan salaamayaa salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaan waxa weeye waxaan u hambalyeynaa dhammaan odayaasha cuqaasha dhammaan deegaanka waxa weeye guud ahaan SSC Sool Sanaag iyo Cayn dadka waxa weeye odayaasha ee safarada dhaadheer u soo galay deegaankan Buuhoodle iyo ka qaybgalka xafladan dib u cusboonaysiinta waxa weeye jabhaddii xoreynta ee SSC Liberation inta kadib waxaan doonayaa halkan inaan bayaan baaq yar ka soo jeediyo baaq ka soo baxay hogaanka jabhadda SSC kuna wajahan dadka degan Sool Sanaag iyo Cayn guud ahaan meel alla meesha joogaan gudaha iyo dibadda gudida jabhadda iyo hogaankeedu waxay bulshada ka soo jeeda Sool Sanaag iyo Cayn qaybaheeda kala duwan waxay ugu baaqayaan inay iska xoreeyaan cadawga SNM ee dhulkooda xooga ku haysta qodobka labaad waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadkii isu taagay inay jabhaddani hirgasho oo isugu jira siyaasiyiin qurba joog iyo isimada dhaqanka iyo ganacsato iyo cuqaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn qodobka saddexaad waxaanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo diyaar u ah xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaanu hubnaa dhulkeennu waxaa qabsatay jabhad hubaysan waxaana ka kicin karta waa jabhad hubaysan weeye sidaa darteed waxaanu leenahay guud ahaan bulshada Sool Sanaag iyo Cayn inay waxa weeye taageeraan naf iyo maalba jabhaddan oo dib loo cusboonaysiiyey dhammaan siday u dhan yihiin qodobka shanaad dadka ku nool Sool Sanaag iyo Cayn waxaan u sheegaynaa inaysan cidna waxba u qabanayn inay ayagu wax qabsadaan mooyaane waxyaabaha inala haray waxa weeye dib u dhaca ugu faraha badan inoo keenayna waxaa ka mid ah dadka iyagii gobolada Sool iyo Sanaag ku noolaa inay waxa weeye inay miciin bideen ama waxa weeye inay cid kale wax u qabato inay door bideen halkan waxaan kaloo ka soo gudbinayaa hiigsiga jabhadda SSC Liberation in gobolada SSC waxa weeye hiigsiga jabhadda waxaa ka mid ah in gobolada SSC in loo dhiso awood ciidan oo ay ku midaysan yihiin dadka degan Sool Sanaag iyo Cayn kana difaacda cadow kasta oo ku soo duula ama ku soo xadgudba dalkeena iyo dadkeena nooc kasta uu ahaado qodobka labaad waxa weeye jabhaddani waxay u taagan tahay difaacidda iyo dib u xoreynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn qodobka saddexaad waxa weeye jabhaddani waxay u taagan tahay midaynta iyo walaalaynta beelaha degan Sool Sanaag iyo Cayn qodobka afraad waxa weeye jabhaddani waxay u taagan tahay fulinta go'aamada ka soo baxa isimada dhaqanka iyo waxgaradka kuna salaysan nabadaynta iyo walaalaynta beelaha wada dhashay ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn degan qodobka shanaad waxa weeye jabhaddani waxay diyaar u tahay beelaha deriska la ah Sool Sanaag iyo Cayn in ay kula dhaqanto deris wanaag qodobka lixaad jabhadda SSC kuma aha duulaan beelaha Soomaaliyeed mid ka fog iyo mid u dhow toona marka ay ummadani gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ku nool marka ay xoroobaan insha Allah haduu Ilaahay raado way xoroobayaan ayaheeda waxa weeye dadkani ayaga ayahooda ka tashanaya Ibrahim Abdiqaadir Sumnews TV Buuhoodle